السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارتي قد دعواني سبرتي ذا يوتيوب كمعلن موسى official channel. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka muslim oo dhan uu isku salaamo alaa wahiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib insha allah dabcan sidii ballanteenu ay ahayd waxaanu sii guda geli doonaa barnaamijyada su-aalaha oo aad igu weydiisaan barta youtube-ka oo aniguna aan halkan kaga jawaabay insha allah. halkan ayaan kaga jawaabayaa biidni illaahi jalla wacalaa. waxaana soo qaadan doona waxa waaye muuqaaladii u dambeeyey ama su-aalihii u dambeeyey ee ku saabsanaa muuqaalkii u dambeeyey ee aan soo dhigay youtube-ka. qofka ugu horeeyo waxa weeyaan walaal qaali wuxuu leeyahay assalaamu calaykum macalin muuse, waa markii iigu horeysay aan kusoo weydiiyo riyo. markii iigu horeysay aad isoo weydiisay riyo, laakiin riyadii aaway. isra cabdullaahi waxay leedahay assalaamu calaykum sheekh muuse, riyo in badan igu soo laalaabatay ayaan rabaa inaad ii fasirto, intee kaala soo xiriiraa fadlan. meeshii aad igala soo xiriiri lahayd waa halkan, meel kale maxaad ka rabtaa? soo aniga hadda akrinaya ma ahan commentigaaga, maxaad su-aashaada iigu soo weydiin weysay oo aad usoo gudbin weysay? qofka saddexaad wuxuu leeyahay assalaamu calaykum shiikow, allah ku barakeeyo, waxaan ku riyooday anoo jooga meel weyn oo qasriyo kale ah oo albaabo badan oo badbaadi jooga oo cararayaan, qofba albaabkii kusoo hagaagu ka baxaya, aniga albaab yar baan is-iri ka bax oo dad badan joogaan. dadkii iga horeeyey oo nin hunguriga xadhig kaga xidhxidhayo ayaan arkay, markaa dibaan u baxay, kadibna meeshii baan ku halaabay. saan u socday gabadh baan arkay, gabadhii itiri halkaa waxaan riyo ma ahan, waa wax qofku inta hurday, qof daalan oo kale. waxaa laga yaabaa maalintaas inaad ku daashay hoosha guriga, adigoo daalan aad seexatay, waxaan kadib aad aragtay, waxaan oo kale riyo lama dhaho. qofka xiga wuxuuna leeyahay assalaamu calaykum sheekh, jazaaka allahu khayran, waxaan ku riyooday anigoo wiil dhalay, haddana kiiyoo yar ayaan ku kale dhalay, gabadhna waan ahay oo anna aan dhahayo goorma ayaa wax baran iisoo fasir shiikho. gabadha haddii iyada oo gabarh ay ku riyooto iyada oo ilmo dhalayso, bishaaro waaye. sababtoo ah weliba bishaaro deg deg ah waaye, khabar saar oo deg deg ah oo caajil ah waaye. marka insha allah waxay u badan tahay in guurkaagu uu deg deg noqonayo, shukaansigaagu ma dheeraan doono, in badan ma lagugu daahi doono. mar allaala markii lagu shukaansado ama lagu jeclaado ama lagu soo doonto, horaa lagaa guursanaya insha allah. sagal maxamuud waxay leedahay assalaamu calaykum shiikow, waxaan ku riyooday anigoo aqrinayo salliga nebiga, weliba kan ibraahimiyada zaa'id ayaan ugu celcelinayay. salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aqrintiisa waa faraj waaye, maxaa yeelay amar rabbaani waaye, yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. marka qofka haddii isaga oo ku salinaya nebiga uu ku riyoodo, faraj aa u imaanaya, yacni faraj oo ilaahay uu ka feedayo kurbo waaye insha allahu tacala. allah kurbada kaa feedo. isra cabdullaahi waxay leedahay shiikow, maadaama aad tiri riyada halkan soo dhiga, riyadeeda waa kelimadda xasbuna allah. mar walba waxaa riyo ku arkaa xasbuna allah, anoo dhib ku jira ama lay cersanayo. markaan dhaho xasbuna allah waan guulaystaa. fadlan sheikh iyo fasir. dabcan xasbuna allah qof walba oo baqanayo ama cabsanayo guushiisa waaye. ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku yidhi suuraddan alcimraan, aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan waqaaluu xasbuna allahu wanicma alwakiil. marka xasbuna allah wanicma alwakiil waa kelmad keliya ee lagu badbaado waaye. marka riyadaadu waa riyo sax ah, waa riyo jirto waaye. mar walba adeegso isticmaalne kelimadda xasbuna allah wanicma alwakiil. walaal qaali wuxuuna soo weydiiyey, waxaan ku riyooday anoo oo liileeyahay waad guulaysatay, oo anoo hayo aan adduunka soo xasuusanayo, iisoo jawaab. waxaan ku riyooday anoo dhimanaya mookawada oo liileeyahay waad guulaysatay. almuhim cimri dheeri waaye. haddii aad ka wadid geeri inaad dhimanayso, haddii aad ka wadid waxay u badan tahay inay tahay
cimri dheeri inay tahay u badan tahay insha allah. Assalaamu calaykum shiiqow, waxaan ku riyooday anigoo musbaar goos jaban iga galay oo iska bixinaya, wuxuuna ka yimid cunto aan cunay. Wuxuu ahaa musbaar yar oo cad. Markaas ayaa dhahaa musbaarkan 3 musbaar ayaa ka horeysay oo aan iska bixiyey. Habeenkaasna adkaar badan ayaa akhriyay markaan seexanayay. Maryan Cumar, walaal musmaarka isha bani aadamka iyo sixirka waxaas waaye. Iska ilaali marka, take care insha allah. Waa sixir. Assalaamu calaykum sheekh, riyada geedka gobka ah oo aan 2 xabo bisil ka soo goostay cunay. Riyada dhexdeeda nin aan aqoon oo jawaan buuxa wato gob ah xaasna. Gobka waxyaabaha wuxuu ka mid yahay lagu daaweeyo dadka amraad ruuxiyada qabo, dadka xanuunsan ee jirooyinka ruuxiga qaba lagu daaweeyaa gobka oo u fiican yahay. Weliba wuxuu u fiican yahay nimanka laga xiro gabdhahooda. Ninka markii xaaskiisa laga xiro ama rabti sixir lagu sameeyo ayaa lagu furfuraa. Marka gobka waxaa laga yaabaa adiga in sixru tafriiq inuu ku hayaa laga yaabaa. Ilaahay xaggiisana caafimaad inuu sidaasi uu kaaga yimidne waa macquul. waa yahay. Hibo Axmed Saciid waxay leedahay assalaamu calaykum, shukran, waxaan ku riyooday miro gob anigoo guranayo oo badan. waa isla meeshii. Gobku waxaan ku macneynay sixru tafriiq, ilaahay inuu kaa caafinayo. Maxamed Yaxye wuxuu yidhi assalaamu calaykum sheekh, riyada geerida adoo geeriyooday haddaad ku riyooto maxaa lagu fasirayaa? Adigoo geeriyooday waa toobad keenaysaa insha allah. Maxaa yeelay geeridu waa soo laabasho, waa soo laabasho. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Marka waa laabasho. Qofka markuu qalad ama gaf uu galo uu ka laabanayane waa sidii isagoo dhintay oo toobad keenay oo kale waaye. Wiilkayga 13 jir ah oo guriga ku kaashayaan ku riyooday. Kaadida wax xun maahan, kaadida waa farac. Wiilkaaga 13 jirka gurigaas uu ku kaadinaya aad ku riyootay, gurigaasuu ku weynaana oo uu ku guursanaa oo uu ilmana ku dhaldhalaya. Macnaha saas waa kaadida, saas waa. Qofka meesha uu ku kaadinayo ayuu ku ilmo dhalaa, halkaasuuna ku farcmaan ilmihiisa. Marka saas waa macnaheeda. Assalaamu calaykum sheekh, riyada galmada ama dhalmada maxay tahay? Waxay u baahan tahay tafaasiil, ay u baahan tahay inaad full information isiisto. Galmada yaad galma la sameynaysay, ma biyaa kaa yimid, waxaasoo dhan loo baahan yahay. waa yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معلم في إحدى المدارس في الصومال، وقد أخبرتني إحدى الطالبات عن رؤيا رأتها في منامها. تقول الطالبة: رأيت نفسي في مكان يشبه الغابة مليء بالأشجار، فجأة جاءني شخص وجهه أسود وملابسه سوداء، وأمسك برقبتي وحاول خنقي، ثم ظهر شخص آخر وجهه أبيض ومشرق وملابسه بيضاء أيضا، وقام بإنقاذي من الشخص الذي كان يحاول خنقه. الطالبة صاحبة هذه الرؤية فتاة مراهقة. سأنتظر الإجابة بإذن الله باللغة الصومالية. أرجو منكم هذه الرؤية، جزاكم الله خيرا. رياضا معناheedu waxa weyn af Soomaali wuxuu leeyahay ninkani waxaan ahay macallim ayaan ahay, waxaana ka dhigaa Soomaaliya gudaheeda madaaristeeda mid ka mid ah. gabar oo taalibad ah ayaa waxay iigu riyootay ayuu leeyahay. waxaan arkay leedahay aniga oo joogo meel baadiyaha qaaba oo kale, meel u eg aniga oo joogo oo geedo badan aniga oo joogo. sidii aan u joogay ayaa sikadiisa waxa u dhacay. waxaan arkay oo ii yimid qof wejigiisu madow, dharkiisuna ay madow yihiin. wuxuu qabtay qoorta ayuu iga qabtay inuu i ceejiyo isku dayay. kadib qof kale haddana wejigiisa cadaa soo muuqday oo birbir qaayo, dharkiisuna ay cadcad yihiin. qofkaasaa iga badbaadiyey qofkii rabay inuu i ceejiyo. waa iska caddahay riyadan. dunida markii laga tago laba waaye. yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuhun, faama aladiina swadad wujuuhuhum akafartum bacda iimaanikum, waama aladiina byadad wujuuhuhum fii raxmat illaahi. wejiyaasha madmadow waa shaytaan iyo dad xunxun waaye. wejiyaasha cadcadne waa dadka wanaagsan ee naxariista ilaahay la kulmaayo. marka riyadan macnaheedu waxa waaye qofkan madow, shakhsigan wejigiisa iyo dharkiisu ay madow yihiin ee inuu dilo isku dayayo inuu yahay shaytaan, cadow xaasida inuu yahay. qofkan cadna ee badbaadinayane waa qof muslim ah, waa qof mataqaanaya xaqi waa xaq iyo baatilne. waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil. waa marka meel ma wada mari karaan. anyway si kastay aataba gabadhan cadow way leedahay iyo saaxiibay leedahay.
cadowgeeda waa midka wejigiisa madow, saaxiibkuna waa midka wejigiisa uu cad yahay, isagaana badbaadinaya waaye. insha allah ilaahay idinka halkaasaan mataqaanaa kusoo gabagabaynaynaa maanta barnaamijka tafsiirka riyooyinka. waxaan rajeynaya inaad ka wada faa'iidaysateen idinka oo dhan biidni ilbaari insha allah, xataa alqaakum xalqada xigta insha allahu tacaala, inta aan ku kulmeyno barnaamijkan aan horumar aan ku sameynayna insha allah haddii ilaahay yidhaahdo, yoom bacda yoom waan horumarinaynaa, tadawur aan ku sameynayna insha allah. waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.